joogtiin waan islaamay fadlan youtube ka ku cusubtahay like share subscribe inta waxa ilaabin soo dhawow marka soo dhawaatid kadib insha Allah barnaamijani wada ama di sheekani wada soo dhawaada waa kala maqneen muddo badan caawa halkan soo firsiyata gurigeyga ma joogi waa ujeedaan fadhiyeed wax ma ku duwaay guri walaashay jooga saas la agligeeda anoo hadda magaalada ka imaaday oo daalan waxa ay ku kalfina xilliga video soo duub waxay tahay in dadka walaalada Soomaaliyeed muslimiinta ah qanciyo video waa jira aan maanta la isoo diray WhatsApp-ka oo ay soo galiyeen quruxda qoyska video soo galiyeen horta ani magacayga kuma qorneen sibir ani aan leeyahay ma saarneen oo ayaka waxaan ku qabsadaa ama aan kula doodo meeshan ma yaalo laakiin gabdho isdagaaleen videogeeda la soo galiyay gabdhaha isdagaalayeen dadkii videoga duwa qof kamid ah codkiisi ayaa wiilkan quruxda qoyska oo qorantaa wuxuu dhahay qofkan qof caan ee waaye aawada taqaaniin arso karta soo dadkii commentigan badi wixii dhahayeen waa rasmi badi wixii dhahayeen ku degdegna bini'aadanka muubtiin inay rasmi tahay ani waa yaabay ani ciidaas dagaalnay ama ciidata isdagaalaysa aan arkay ma jirto waxa lahay beenaale wuxuu marqaati gashtaa qof dhintay qof maqan maalin anaga suuqa joognay dukaanka aniga iyo qaaladan iyo gabar kale oo suhuur dhaho dimaashideen ah ama walaasheen ah oo joogto suuqa anaga wada joogno ayaan aragnay video gabadhan dilay wallahi waa ka wada xumaan aniga iyo qaaladan qaal insha Allah ayadana mooni keeni doona ama se koolan igu wici doona waa ka wada xumaan video meeshan ku wada aragnay waa ka naxnay anteen bini'aadanka la iska nabta ma wanaagsano wixii ani asoo video socdo aan arkay ayaa maanta waxa la leeyahay rasmi waay bulshada Soomaaliyeed waa jecelahay maxaa la jir fanaanad qabiilnamiyi fanaanad qaranahay fanaan marka laga soo tago gabar Soomaaliyeed ahay waa ku faanaa markasta Soomaalinimadeeda dagaal waa isdagaal dumar way isdagaalaan hadaan qof isdagaalno maanta inta soo firstaan diilaha waa isdagaalnay ama aan ka qaldanaa ama way ka qaldaneed hadaan laba qof oo kala hiliyana waxaan diilaha ha saasi arinta ku jirta meel aan lu kulahayn ama aan taagnayn ama aan ku shaqulahayn in lagu nabo waa qalad horta videoga waa kana wiilka quruxda qoyska la dhaho oo soo galiyay hilay gabadhaas ugu baahan tahay mayin jeer baan qofka aniga wacay telefoonka waa lagu dhageysanaya mar waa lagu jaraya waxba uga ma baahnay anaga laakiin waxaan rabnaa in aan dul istaagno gabadhaas dhibaatada loo geystay in aan dul istaagno adiga marka i daawanaya damiirka Soomaaliyeed iyo midka muslimiinta adiga oo ixtiraamaya adiga oo jecel inaad gabar Soomaaliyeed cadaalad u sameeyso isla markaasina garab istaaga codka aan ku maqashinayo qofka uu yahay aad isleedahay alla ilaahu qofkaas uu ilaahay commentiga nagu soo wadaag cidna adigoonan u turin oo ilaahayga subhanahu wa ta'ala cadaalad ka raadinay shakada qarsooda iyo baabaan iyo shakada waa laga soo gudbaa dartaa muuqaalka idin tusimaayo waxba waa la wada arkay baraha bulshadu yaala gabadha Soomaaliyeed horta wiilkan inuu ani haystay qof kale haysta Allah baclam because wuxuu dhahay codkan ila ogaada laakiin laga yaabo dadku isku cod ee kaani karaan bini'aadanka dad wajiyadooda isku eegin iska dhaaf cod ah dad la dhahay mataana maatiin hebel isku eegtiin aniga rasmi ah waxaas la sheegaa waa ka madax banaanahay insha Allah xilli dambe waa hada waa 8 saac hada awoodo qaalata waa wici lahaa laakiin video kale aniga soo sameynaa insha Allah waa xilli dambe xilligan qaali ma wici karo gabar marway degan gurigeeda kale waa saxabta xilligan ani rasmi ah dagaalkaas shaqo kuma lihi bini'aadanku isku cod ee kaan karaan yaan la idnabin Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka u jeedo yaan ani been liga sheegin ifka hal wiil ku haystaa hal wiil wata wiilkayga geeridiisa la isoo sheegaa aniga waxaas inaan dambi ku lahayn cunugayga dhadheer ugu madhaarto cida ka baqayaan Ilaahay hortum jirto aan dad isdagaalnay amsa aan aniga dad u hiiliyo ma soo farsteen ma soo hadlay marka koowaad tan labaadna ana dhibka geystay dadkii aan dhibka u geysto man ama iska soo xaal marin lahaa ama iska soo celin lahaa laakiin waxa ani intii soo firsiyay waxay tahay dadka bulshada Soomaaliyeed oo ani jecel oo igu xiran ee qaladkiiga fahmaayay inaan qaladkooda ka jaahil bixiyo sharaf kuma jirto laakiin waxaan rabaa waxaan doonaynaa maanta waxa weeyaan kaliya inaan wada wadaagno codka qofka aad isleedahay alla ilaahay qofkaas uu ilaahay waa dad social media isticmaala oo la yaqaan adigana aad taqaan anigana aan kaamo toddoba qofood aan u wada fariisanay asla qiimeynay ilaa uu ilaana inoo soo baxday waa six karaa wana qaldi karaa taa muhiim ah laakiin muhiimaddu waxay tahay inaan idinkana idinla qaybsano dareenkanaga iyo waxaan ka aaminay muuqaalka inagoo weliba ku daba joogno gabadha xaaladeeda halkay ku dambeysay si fiican u dhageysta dhagahagana fur
kugu soo celinaya si fiican u dhegeyso iska celi naagta ariish waa kugu soo celinaya mar kale dhegtaada intaa furto qofka aad u malaynaysa ee social media ku jira qaybta commentiga nagula soo wadaag iska celi naagta ariish maasha Allah horta codka waa dhageystay hadda idinku arkaysiin waan dhageystay horena waa liigu soo diray dad badan WhatsApp-ka igu soo direen rasmi codkaas la wareejinayay adiga miya ku dhahay codkaas horta ani mihi binaadamku isku cod kan karaan marka koowaad tan labaad qof kastoo xabiib lama aha in rasmi ay tahay aniga mihi ilaahay magaciisa ku dhaarnaya aniga mihi Soomaali Maxamed ay dagaalka maanta insha Allah meehen ugu yaraan waxa ka soo wareegtay 2 weeks wallahi xilliga anaga aan aragnay reer Nairobi ahaan videoga social media soo galin reer Nairobi idris wareejinaya aan aragnay horta qofkii la dilobo hadii la rasmi wax dish ana saa u dagaal necbaha isa u dib necbaha hada ogaan laheedeen dushayga ma saarteen kama cod video dad isdagaalay hataa waxa la rasmi wax dishay gabar maxaa la jiraa dhahaan sharaf oo asxaab aan hay oo iskaranayno iyo gabar kala isdagaaleen soo gabdhii markay isdagaalayeen video laga duubay labada gabdhood isdagaalayeen waxa la dhahay waa rasmi rays hadda YouTube kada adaan galo waa arki karaa midika waa aragteen aan dhowr qof isoo wiciisa way ogaayeen qof walba isoo weydiinay rasmi yahay sharaf qofka dilay aadmi axmed bilaa gabar walaashay waa maxaan isku keenkeena okay hana sharaf tookadii ay gabadhi isdagaaleen rasmi ku soo qorateen meel walba ama dad baa hadlaayo laha rasmi waayo qofka hana sharaf dilay markaas waa awood inaan soo fariisto on dhaho qofka gabadhaas isdagaalayeen aniga mihi laakiin waa iska aamus wax dhahay rasmi dagaalkani waxaan afaaraha dan nagsiyaada shaqada kugu tahay iskaaga aamus hanana waa gabar walaashay gabadhi kale hanis dagaalayeen waa gabar walaashay lagu dhado walaaladii ahayn tii sidaas ku dhamaatay hadana gabdho kale isdagaalayeen cod la maqlay codkaas waa rasmi rays walaalayaal dad muslimaan nahay yaanan maxal dijir isku soo xad gudbin yaanan lis aflagaadeenin fahanteen kulay gabadhi la dilina even reer Nairobi la isla yahay hadii aan maxal dijir ee suurta gasho oo ama aan arki karo ama aan gabadhaas maxal dijir la kulmi karo waa la kulmi doonaa inta soo sameeynaayo dadkayga iyo asxaabtayda iyo dadka igu xiran iyo bulshada Soomaaliyeed inaan qanciyo fahanteen wiilkan quruxda qoyska la dhahayana kulay cid u haystay cid u ka hadlay eeda og laakiin videoga waa la ii soo diray dad ay soo direen oo igu dhahay rasmi codkaas adiga miya wax yar commentigani aan akhrisanayna Medina Maxamed xiraade hadaanan qaldaneen codka rasmi ila yar eegyahay okay qofna wuxuu dhahay waa rasmi amaal aadan waxa dadka way isku cod egyihiin yaan lagu degdegin gabadha halo Soomaali ah oo wixii jira banaanka u soo bixi dadka niyahow hadan baajinin mal isku diree okay qofkan wuxuu dhahay waa Natasha iyo rasmi rays okay qofkan wuxuu dhahay rasmi rays ay u cod eg tahay laakiin ilaahay baa og xaqiiqda dadka isku cod eg way jiraan badan yihiin hala sameeyo dadka sidan ula dhaqmaya gabadha hala raadiyo qofku wuxuu ma aqaan qofku yahay laakiin wuu xanuujiyay gabadhan sida loo galay korka dhanba ijirracooday sidoo kale baa aniga wuu xanuujiyay gabadhaas videogeeda marka ark shalay maanta idinka aragteen anaga hal mar isla aragnay qaali anaga dukaanka joogno waana ka xumaanay qofku wuxuu dhahay cadeyn ayaa laga rabaa inay rasmi tahay adna kulay aboowe aqoonku mulihi YouTube kumba kugu arkaa badana videoyadaadan waxaan arkay xiliyadii aan kala soo kala tagnay wiilka aan kala tagnay adoo video adiga gabadha wada joogtiin idinka videoyadii idinka ka hadlaysiin waa arkay iyo idinka videoyadiina kala ka hadlaysiinba ninkii aqoon saadii malihi laakiin hadii arintan ay noqoto been ama soo cadaan weyso ogo bulshada aabeenta u soo gudbisay inkastoo aad magac sheegin laakiin bulshada aabeenta u soo gudbisay ina raali gelin adiga ka bixinaysid ani 100% waa raali gelinayaa dhamaan asxaabtii ku xiran ee Soomaaliyeed gabar waxa ahay Soomaaliyeed gabar qabiil meehi meel isku dagaalana moogeen meel dagaal ka dhacana moogeen taas idoo geysina marka waalad
qofkan wuxuu dhahay rasmi ayaad ku waalatay Allah ka baq. ma garanayo anigu laakiin beenta daayo qof uu yahay ma taqaaniin. qofkan wuxuu dhahay rasmireys bay u cod eg tahay laakiin dadku way isku cod ekaan karaan. rasmireys ayay u eg tahay, ilaahay ayaa og inay ayada tahay. okay, gabadhan waxay dhahday rasmi reys ay ila eg tahay allahu aclam. hadday ku cadaato looga harimayo, laakiin mid aan kuu sheego 4 gabdhood oo aan saaxiibanahay mid ila dhalatay ayaa waxay isku raaceen cod gabar soo duubtay inaan aniga ahay, mana ahayn. marka dadku way isku cod ekaan karaan, yaan lagu degdegin please. maladu waa dambi, dadka waxay leeyihiin hadday shaahid ahayn please ha ku dambaabin, dadka wax hala hubsiiyo. okay, intaas ka badan commentiga ma sii aqrini kari. been ma fiicno. dadka qaar waxay leeyihiin waa rasmi, qaar waxay leeyihiin rasmi waa codeg tahay, qaar waxay leeyihiin maladu waa shay xaaraan ah ee hala soo hubiyo yaan lagu degdegin. alxamdulilah aniga kale waa isubaa aan rasmi ahaan inaan waxaan fal ku lahayn, hataa meel laisku dagaalamo ogeyn. so qofkii la dilo waa rasmi aa dishay, qofkii codsood waa rasmi waaye. ilaahay ka baqa, malada ma fiicno. gabadhaas Soomaaliyeedna kale videogeyga way daawan doontaa ee la dilaayo. abaay macaantooy ilaahay ha kuu boogdhayo qurxey, aqoon kuma lihid, laakiin Nairobi ay isla joognaa. Nairobina waa magaalo yar oo la is ogaan karo ama la soo raadin karo. hadday ii suurta gasho waan ku soo raadin doona insha Allah, ama koola ka soo wici doona oo ogaan doona arrintaada siday ahayd. waana ka xumaa baa saakada u dambeysay qaaladana wallahi soo wacday ugu tirada rasmiye farxi kabara soo wacday wixii raadinaysa gabadha la dilay numbarkeeda. maxaa la jiray numbarka gabadhaas kale ma heli karnaa, ma garanayaan ku dhahay gabadha kale numbarkeeda. so sidaas ina badgaliya idinka tagaya. Soomaali Axmed waxa la hubsado qof yaa lagu dambaabin, bini'aadamku isku codeekaan karaan. video hadda qorta rasmireys oo hana sharaf dishay waa soo arkay. anina mihi aniga hana sharaf lagu dhaw walaalana waxa dagaal waxa isku maana ma jirto. ani mihi gabar kale is dagaalayeen waxa ku qoran hana sharaf rasmireys oo hana sharaf dishay. intaantiin hadana waa kana rasmireys codkeeda la wareejinayo loo anoo soo taagay mihi. okay, anyway asxaabta saas idiga tagaya, sidaas ii nabadgeliyo. khayr ay diirjeenaya, kulanti dambe wanaagsan. gabadhaas walaasheena Allah u boogdhayo, aan u soo wada duceeyno. onikaas good night.